بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمانيته معناها waxay noqonaysaa in la kala saaro diinta iyo maamulka, ama waxaynu oran karaa cilmaaniyadu waa in doorka diinta lagu soo koobo oo kaliya cibaado ee aan si dhameystiran loogu dabaqin qaybaha nolosha gaar ahaan xagga xukunka. sanadkii 1846 ayay ahayd markii ugu horeysay uu soo shacbaxay ereyga cilmaaniyad, iyadoo wadanka Ingiriiska uu ahaa cidii ugu horeysay isticmaashay dhaqan galisayna kadibna waxa uu ku baahay badiba wadamada reer galbeedka iyo caalamka intiisa kale. haddaba waxaa su'aal ah oo ay mudan tahay inaan isweydiino, waa maxay sababta ka dambeysay inay cilmaaniyadu soo baxdo? hagaag waxaynu isla ogaanay in cilmaaniyadu ay ka timiday reer galbeedka. haddaba Yurub waqtiyadii hore waxaa hoggaanka u hayay wadaadada Kiristaanka, kuwaasi oo fadhigoodu ahaa kaniisadaha. xilligaasi isaga ah waxaa jiray loolan u dhaxeeyay siyaasiyiinta iyo baadiriyada oo socday dhowr qarni, kaasi oo nuxurkiisu ahaa in diinta iyo maamulka la kala saaro. dhanka kale dadkii reer Yurub ayaa xamili kari waayay dulmigii iyo dhibtii ay kala kulmeen wadaadadii kaniisadaha, iyaga oo u baahday in ay ka hoos baxaan dhibtooda. kacaankii warshadaha ee ka hana qaaday Yurub intii u dhaxaysay 1760 ilaa 1860 waxba isbedelay, oo waxaa si toos ah u guuleystay fikirkii siyaasiyiinta ee ahaa in la kala saaro diinta iyo maamulka. halkaas waxaa ka soo ifbaxay in maamulka dawladaha ay hogaamiyaan siyaasiyiin oo ay kaniisaduhu ku ekaadaan diintooda. wixii intaasi ka dambeeyay waxaa dhashay nidaamka cilmaaniyadda ee afka qalaad loogu yeedho secularism, oo ku dhisan in qof kasta uu si xor ah xakamo la'aan u fikiro, diintana ka fogaado, una dhaqmo xishood la'aan sida xoolaha oo kale, naftana si xorriyad ah looga qabtiro wax kasta oo ay jeclaato ama ay u baahnaato. nidaamka cilmaaniyaddu markuu si fiican u hirgelay laguna tallaabsaday horumarkii kacaankii warshadaha, bulshada reer galbeedka waa la dhalinrogay oo waxaa laga dhaadhiciyey diintu inay tahay dib u dhac oo aanay la jaan qaadi karin horumarka iyo hilbaxnimada sabanka cusub. kadibna sidii la doono ayaa loo maamulay. diintii masiixiga waxaa lagu sameeyey isbeddel weyn, waxaa la soo saaray kitaab cusub, waxaa la qorsheeyey in halkii qarni la sameeyo isbeddel la jaan qaadi kara waayaha dunida iyo dabeecadaha bulshada reer galbeedka. ha yeeshee diinteena islaamku waxay aaminsan tahay in qofka muslimkaa dhammaantiiba uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay. diinta islaamku waa diin dhammaystiran oo isku dheeli tiran dhan kasta oo laga eego. waa diin aan lahayn wax dhaliil ah oo lagu qoonsan karo si aan aakhire iyo adduunkaba ugu badbaadno. waa diin kulansatay wax kasta oo aadana u baahan yahay, maadaama bini'aadamka uu Eebbe abuuray, haddana sida uu u abuuray ayuu dantooda iyo maslaxadooda uga yeelay. diinta islaamku waa sharci iyo nidaam buuxa oo dhammaystiran. haddaba cilmaaniyaddu waxa ay dadka muslimiinta ah ee diinta islaamka u nasab sheegta ugu yeedhaysaa diin la'aan iyo habow. sida salaada, soonka, sakada iyo xajku ay waajib u yihiin, ayaa in la isku xukumo kitaabka Allana uu waajib u yahay. haddaba Alle iyo rasuulkiisu waxayna fareen inaan kitaabka Alle iyo sunnada rasuulka isku xukunno. cilmaaniyaddu waxay ina faraysaa in la kala saaro diinta iyo maamulka. haddaba haddii aynu muslimiin nahay, kee ayaynu raacaynaa? waxa ay la tahay qof walbo islaamnimadiisu toosan tahay inuu odhanayo waxaan raacayaa yeedhmada Eebbe iyo suubanihiisa. xaqiiq cilmaaniyaddu waxay xambaarsan tahay diin la'aan. waa afkaar liddi ku ah gebi ahaanba diinteenna islaamka. waa qorshe loogu talagalay in lagu dumiyo diinta islaamka kadib markii ay socon waayeen fikrado badan oo hore. khatarta cilmaaniyaddu iyo diin la'aantu ay huwan tahay waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahay in dadka muslimiinta ahi gaar ahaan bulshadeenna Soomaaliyeed ay u toog hayaan, kana warqabaan, iskana jiraan si aan loo dagin. wadamada reer galbeedka awalkii horeba waxay ahaayeen dad ku sugan mugdi iyo diin la'aan oo dan iyo baahibaba u geysay inay qaataan afkaartan habowga ah. balse ma jirto wax baahi ah oo wadamada muslimiinta ah u geynaysa qaadashada afkaartan khatarta ah ee diin la'aantu gundhiga u tahay, maadaama ay haystaan diinta islaamka ay xaq ahayd. ugu dambayn, si aynu uga baxno mugdiga habowga, dulmiga iyo lunsanaanta, waa inaan diinteenna suuban dib ugu laabanaa, iskana ilownaa afkaaraha khatarta ah ee guracan oo ay ugu horrayso midda cilmaaniyadda loo yaqaano.